السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta mowduuceena waxa uu ku saabsan yahay waqtiga. Waxa aad isweydiinaysa waxa ay tahay waxa aan ka sheegi rabo waqtiga iyo waxa aan rabo inaan ka hadlo. Waxa aan rabo inaan ka hadlo maaha sida aad ugu faa'iideysan lahayd waqtiga iyo waxa ay tahay inaad qabato. Haddaba waxa isweydiinta mudan waxa ay tahay sababta aan uga hadlayo waqtiga. Haddaba jawaabta waa tan. waxaa nagu soo foodle bisha barakeysan ee Ramadaan. Waqtiga waa uu kooban yahay. Waxaa la yiri wax la tiriyay ma dheero, micnaha way dhamaanayaan. Waxa wanaagsan ee aad qabato bilaha kale iyo bisha Ramadaan isku mid ma aha. Marka waxaan ku leeyahay wax walba oo wanaagsan ee aad qaban karto bishan qabo. Haddii ay howlaha adduunye ka xirxiran yihiin, ducada badi. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa saxaabi waxa uu weydiiyay Rasuul Allow ii sheeg shay aan ku dhago. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri carabkaaga ha ka qoynaado xuska Ilaahay mar walba ku celceli. Marka saacad walba, waqti walba, mar walba iyo meel walba aad joogto, laazim xuska Ilaahay. waxaa jira xadiis kale oo rasuulku ku leeyahay sallallahu alayhi wasallam laba kalimo oo carabka ku fudud miisaanka maalinta qiyaamana ku culus alle agtiisana loogu jecel yahay subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. haddii aad labadan kalimo ku celceliso waqti walba aad dhahdo, waxay ka dhigan tahay in aad waqtigaaga ka faa'iideysatay. rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay qofkii akhriya hal xaraf oo ku sugan kitaabka alle waa quraanka, waxa uu ku leeyahay xasana ama ajir. halkii xasana waxa loo labalaabayaa 10 jeer. rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay ma dhahayo alif laam miim waa xaraf, laakiin alifku waa xaraf, miimku waa laamkana waa walaal. waxaan ku leeyahay inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, badi akhrinta quraanka, xuska alle. haddii aad badan tahay oo soo kici karto habeenkii oo salaad tukun karto waa wax wanaagsan, laakiin haddii dadaalkaadu iska gaaban yahay, badi xuska alle adigoo fadhiya mar walba ku celceli labada kalimo iyo tasbiixaad fara badan. mowduuceena maanta intaas ayuu ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.